Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii la magac baxay baro cilmi nafsiga. Waxaan aad idinka raali gelinayaa muddadii koobneed ee aynaynu soo gelin wax fiideo ah. Insha Allah usbuuc walba waxaad naga filan doontaan xalqad cusub. Xalqadeena maanta waa xalqadii saddexaad. Xalqadeena maanta waxaan kaga hadli doonaa maskaxda kiimikada ama waxaynu ku cadeyn doonaa psychology-gu inuu yahay nafley ama biological. waxaan laba qaybood ka soo qaadan doonaa cilmiga nafleyda ama biology-ga. waxaan soo qaadan doonaa nidaamka neerfayaasha iyo nidaamka dheecaamada. labada ugu waaweyn ee jirkeena ka mid ah, saameynta ugu weynna cilmi nafsigu uu ku leeyahay labadaas. haddii aynu ku horeyno nidaamka neerfayaasha, waa shabakad ka kooban unugyo iyo neerfayaal kuwaas oo maasajyada ama fariimaha u kala gudbiya maskaxda iyo lafdhabarta xangulada, iyaguna markaa ay fariimaha sii gaarsiiyaan qaybaha kale jirka. nidaamka neerfayaasha haddaba waxa uu isticmaalaa waxa loo yaqaano neuron ama dareemayaasha. isaguna waxa weeyaan unug kaariye ah una gaar ah inuu helo ama uu diro fariimaha neerfayaashu ay isku dirayaan. neuronsku ama gudbiyaasha neerfayaashu waxay isticmaalaan waxa loo yaqaano neurotransmitter oo ah gudbiyaha neerfaha. gudbiyaha neerfahani waxa adeegsada habdhiska neerfayaasha si loogu diro fariimaha xubnaha jirka kala duwan. marka xubnaha xiriirkooga ayuu ka shaqeeyaa neurotransmitterku ama gudbiyaha neerfayaashu. neurotransmitterku ama gudbiyaasha neerfayaashu waxay noo qabtaan laba shaqo: inhibitory oo ah xanibe wax kordhay inay yareeyaan, iyo excitatory oo ah cariye wax yaraaday inay kordhiyaan. haddaynu isla eegno laba qaybood oo mid cariye yahay midna xanibe yahay oo laba example soo qaadano, waa serotonin oo ka shaqeeya xasilinta niyadda, fayoobanaanta iyo farxadda qofka. marka isagu wuxuu noqonayaa xanibe. waxaa kaloo jira epinephrine wax loo yaqaano, isagu u muhiim ah ka jawaab celinta xaaladaha degdega ah, sida imika haddii uu libaaxina soo weeraro kale inaad carartid ama la dagaalantid. waxaa loo yaqaanaa fight and flight response. waxaa jira ku saddexaad oo isagu xanibe iyo cariyaba noqdo, loo yaqaano dopamine. dopamine waxa uu qeyb weyn ka qaataa awoodda fikirkeena iyo qorsheynteena. marka haddii isla eegno shaqada uu inoo hayo nidaamka neerfayaashu, waxa weeyaan in imikoo kale haddii aan wax kulul taabto, within seconds ama seconds wax ka yar ayay gacanteedu la boodisaa. maskaxda ayaa soo diraysa in wax kulul la taabtay, muscleska ama markaa qeybta muscleska ayay ku odhanaysaa gacanta degdeg uga qaad. hab noocaas markaa ayay ku shaqeysaa habdhiska neerfayaashu. markaa qeyb weyna wuxuu ka yahay cilmi nafsiga aynu baranayno. haddaynu markaa isla eegno qeybteena labaad ee endocrine systemka ama habdhiska neerfayaasha, waa shabakad ay ku jiraan qanjiro ku dhex jira jirkeena, iyagoo qanjiradaasi ay sameeyaan hormoonada unugyadeena caawiya. laba qaybood baa ugu muhiimsan oo loo yaqaano hypothalamus iyo pituitary gland. hypothalamusku waxa uu isku xidhaa habdhiska neerfaha iyo habdhiska dheecaamada. hypothalamusku markaa maskaxdeena ku dhex yaala, waxa uu isku xidhaa labada qaybood, waxa aanu maamulaa pituitary gland. pituitary gland-ku waa ka isagu markaa qanjirada kale maamula ee amraya in hormoonka la soo daayo in aan la soo daynin. markaa isagu wuxuu ka amar qaadanayaa hypothalamuska ama maskaxda si uu fariimaha ugu diro qanjirada kale. intaa waxaynu kusoo gabagabaynaynaa casharkeeni maanta oo aynu kaga hadlaynay cilmi nafsigu siduu biology u noqon karaya ama nafley u noqon karaya. waxaan rajeynayaa in aad wax badan ka faa'iideen. qaybahan kale oo badan yani biology-gan aynu ka wada hadlayno sida endocrine systemka, nerve systemka, waxaad ka heli kartaan casharadeeda online. inagu markaa waxaynu diiradda saaraynaa wax kastoo cilmi nafsiga xidhiidha. waxaan rajeynayaa markaa in casharkani uu dadkii shakiga uu kaga jira cilmi nafsigu in wax run ah yahay inaanu ahayn uu ka saaray shakigii ku jiray, ayna u arkaan hadda kadib cilmi nafsigu inuu yahay wax muhiim u ah nafteena. sidaa markaa waxaynu ku gunaanadaynaa casharkeenii saddexaad ama xalqadeenii saddexaad. waxaan idinku salaamayaa salaata islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.